السلام عليكم. maxaa ka taqaana xanuunka loo yaqaano health anxiety ama magaciisa kale loo yaqaano illness anxiety disorder. DSM-4 kana la oran jiray hypochondriasis. xanuunkaas waa xanuun qofka maskaxdiisu ay aad ugu mashquulayso inuu qabo ama qaadayo xanuun khatar ah oo wali la diagnose garay. qofku wuxuu calaamadaha yaryar ee jirkiisa ka soo baxa ayuu wuxuu u fasirayaa in uu ku dhacay xanuun aad weydi, sida haddii qofka indhihiisa kale oo ayuu eegaya xilay indhahayga midabkoodu soo bedelaya yellow bay noqonayaan, malaa kaliya is fadhiistay. qofka dawaq yar buu yeelanaya, xoonaya dawaqan malaa brain tumor bay ahay, maskaxda kansar baa igaga soo socda. waxaasoo dhan wuxuu sameeyaa qofku uu google garaynaya, wax kastoo arko uu google garaynaya, wuxuuna ka baqanaya in xanuun weyn uu u liid garayo. waxaa kaloo lagu yaqaanaa xanuunkan inuu qofku dhakhtar u tago. marka waxaan isku arko kolba dhakhtar buu u tagaa. dhakhtarku u tagaa wuxuu siiyaa reassurance ama wuxuu damaanad u siiyaa inaanu xanuunkan qabin uu sheeganayo, ama calaamadaha yaryar uu arkayo inaanay ku liid garaynaynin xanuunkaa weyn ee qofku iska nafso oo wax weyn aanu qabin. laakiin qofku ma ku qanco, wuxuu leeyahay dhakhtarku waxbuu miskareeyey, waxaan u tagaya dhakhtar kale. halkaas qofkiiyo dhakhtar uu kala wareegaya. wax kaloo xanuunka lagu yaqaanaa qofku inuu marka dambe iska ilaaliyo inuu la xidhiidh la sameeyo ama booqdo ama arko qof xanuunsanaya isagoo maskaxdiisa control karayo, oo xanuunkii qofka hayay uu isleeyahay ama kugu dhici doona ama warwar badan uu xanuunkaas ku keenayo. calaamadaha marka qofka lagu arko, calaamadahaasi waa inay si buuxda u saameeyaan qofka daily lifekiisa. markay saameeyaan muddo ka badan 6 biloodna ay calaamadahaas hayaan, ayaa waxaa qofka lagu diagnose karaya inuu qabo xanuunka loo yaqaano hypochondriasis ama health anxiety ayaa lagu diagnose karaya. waxaa keenay insha Allah waan ka hadlaynaa next time ka.